samayso codkaaga u duubto markii aad joojinayso isla iyada click siinaysaa. okay waayahay waxaynu ku xigaa number 8. number 8 waa Windows Memory Diagnostic. هذا Windows Memory Diagnostic muxuu yahay يعني waa memorygaaga tusaalahan test ayaa u diraysaa memorygu inuu caafimaad qabo يعني wuxuu sameynayaa markaas wuxuu bilaabayaa testiga audio scroll 1 ilaa 100 ilaa 100% marka wuxuu ku sheegayaa ugu dambeynta feedback memorygaaga in error baa ku jira mise waa caafimaad. marka save u tageena xaga ka tageena waa kan ila soco meel kale tagmayso start menu ayaa tagaysaa kadib waxa ku qoraysaa memory memory marka ku qorato ama Windows ku qoro labadaba ka ku qoro ku soo qabanaya Windows Memory Diagnostic. okay hadaba restart now hadda ku dhufto toos buu bilaabaya ama check for problem the next time I start my computer ama se markii aan computerkayga daaro hadhowdii hore ka bilaabo yani labada step ka rabta dooranaysa in goorta computerka damiso daaro hadhowdii oo doorto hore ka bilaabo ina hadda u dido start now dido marka start now ayaa click siinaysaa hore ay wax ka bilaabaya diagnostic testigi halkaas marka Windows aan ku hadaa kugu celiyo meesha tagayso Windows ka tagaysaa isla meesha daayay sirji ba tagaysaa memory oo ku qoraysaa kadib wuxuu ku soo qabanayaa Windows Memory Diagnostic waxa ku dhufanaysaa labada option ka rabto dooranaysaa hadda rabto restart now hadii kalena adowdi waa garan hadii taa ka sii gudubno oo cashirkii noo sii gudubno waxaynu ku xiga qodob muhiim ah oo ah number 9 closing lid waa muhiim in dhammaan qof kasto isticmaala computerka laptopka oo muhiim waxay muhiim ugu tahay closing lidka ama lidka wax loo isticmaala yani computerkaaga marka isku laabto uu istaminaya tusaalahan cashara qoraysay programmes waa ku jidhay mataqaana ku khaasa qof baa ku soo dul istaagay computerka waa laabtay okay computerka wuxuu sameeyaa waa istaminaya hadhow marka kala fudho ina dib u daadu noqonaya. so lidku waa program ama option ka kaafinaya in computerka uu istamin computerka marka isku laabto iyo hadii aad kala fudho inuu online yahay oo iska daaran yahay oo markasta hadda isku laabto oo kala fudho meesha maraysa waxa ka sii bilaabato. marka lidka waa aad buu siiba aniga in anfacay marka arkay marka waa qodob aad muhiim u ah inaad fahanto dadkuna u baahan yihiin dhamaan ardada iyo dadka isticmaalaba okay marka lidku xagee ku jira save xagee ugu tageena yani xagee laga tagaa optionkiis had ila soco. okay si aan lidka u tagno door option ama door meelood ba laga tagaa. so waxaan dhihi karaa adigoo desktopkaaga jooga start taskbar ama powerka batteriga right click ba dhehaysaa kadib waxaad dhehaysaa power option. okay dhinaca leftiga ayaa waxa ku arkaysaa juice what a closing for the lidkaas dooranay marka click markaas siiso waxa arkaysaa lidka halkan when I close the lid markii aan isku laabo computerkayga do nothing waxba ha qaban laakiin badanaa dadku waxa u dooran shut down oo ah dami oo dooran marka halka waxa ka dhigaysaa do nothing waxba ha qaban do nothing waxba ha qaban kadibna cadaysa save. okay computerka hadda isku laabto hadii kala isku gudbiyay hal mar ku cesho batteriga tagaysaa ama powerka right click de power option kadib lid dhinaca bidix waxa ku arkaysaa juice what a closing the lid juice lidkaas ku dhufanay kadib lidkaas meesha ku toosan ay qaanadaha kan ayaa do nothing iyo do nothing dhisa
waxbaha qaban yani waxba isbedel ah samayn. Okay, waxaa kaloo laga tegi karaa waxaa kaloo tegi karaa start menu, waxaa ka tegi karaa setting, waxaa kaloo ka tegi karaa system, baa ka tegi karaa power sleep baa tegaysaa, additional power setting baa kasi tegay, lid baa sii tegaysaa, halkaas kasii bedeli karaa. laakiin waa system xoogaa ka dheer kii hore. kan ayaa fudud oo ah inaad powerka right click siiso, option dhehdo, lidka iska xidho. Okay, haddaba lidku waa shay muhiima oo qof kasta anfacaya. yaa maxaa yeelay qof kasta dee wuxuu rabaa isagoo computerkiisa isticmaalaya ayaa marxalad ama xaalad ku imaanaysa ama lasoo gudbanaanaysa. saa darteed waa inuu mataqaanaa isku laabaa isagoo hadhowdii ka fikerayn inuu computerkii programmihiisii wixiisii ka tuuro, kadibna hadhowdii uu si easy wixiisii normal uu sii wadan karo.